barasaabka gobolka Buuhoodle Mustafa Xaaji Cabdi Muuse ayaa geel mag ah u kala wareejiyay beelaha ka soo kala jeeda degmada Qurulugud iyo gobolka Buuhoodle madal isugu yimaadeen cuqaasha gudiyada siyaasiyiinta iyo haldoorka labada beelood ee maanta geelkiiskaasi kula kala wareegayay degmada Qurulugud ayaa ka qabsoontay duleedka degmadaasi ugu horeynba Chief Caaqil Xasan Xaaji Haaruun iyo odayaasha beesha Faarax Xagar oo geelkiiskaasi bixinaysay ayaa ku dheeraaday in laga shaqeeyo nabadgelyada oo lagu samro xoolahaasi waxayna halkaasi ka sheegeen 130 halaad oo ah kiiskii Allah u naxariistay Yuusuf Salabaan Geedi in uu yahay waxaana kamid ah hadaladoodii waxaanu wadnaa geel 130 waxay geel 130 ka ah waxa qaalmo meesigiisa markaan kala qaado meesinkii qaalmo waxa ku jira lixdan qaalmood baa ku jira waxay u qaybsan yihiin oo isugu jiraan marka hore lacag iyo dhogoro lacagtuna waa 400 geela 60 ka ay qaalmaha weeye awrtu waxa weeye 230 hadiyo gooraale marka waa la dhex galaado iska dhacdaa laakiin waxaan codsanaynaa iminka geelu waati abaarta ku kacdado marka hore curadba male geelaas wuxuu yahayba geel wanaagsan baan koolay geel lagu nabdo yaanu inta aan isku guubaabinayn inta geel lagu nabdaan isku guubaabinayn laakiin waxaan codsanaynaa inay naga dhaxgelin wada qaadataan geel 100 ka ah nin xeer inooga aha ama shariicaduba ka xukuntay halkaas ku dhanya geel 30 ka aha xeerka inoo aha ee aynu min 300 kala qaadan jiray isageena waa sidnaado waa 9,000 magtaasu saasay nooga dhan tahay cidii haatan naga sugaysayna waa u mahadnaqaynaa geesta kale Chief Caaqil Ali Aadan Afquwarele iyo Caaqil Jaamac Maxamed Cabdi Sugaal iyo sidoo kale wasiirka hore warshadaha Axmed Cali Ubaxle xubna ku haldaayay gudiyada beesha reer nabad ee geelani la wareegaysay ayaa hadalka isaga daba qaatay iyagoona halkaasi ka cadeeyay in geelkiiskaasi lagu sabrayo iyagoona bulshada gobolka Buuhoodle ku booriyay in laga run sheego nabadgelyada waxaana kamid ah hadaladoodii walaalayaal hadda tiin reer Buuhoodleba wax allaaleeyo wixiina lagu leeyahayna waa iska bixinayna wixii aanu leenahayna bari walaalniman ku dooreynaa nagu siiya geela de waa u nimi inaanu qaadano waynuna ka balansanay wixii tiradiisu sida la sheegay 130 baa eeriyadan iyo deegaankan lagu kala qaataa 130kii 30 kuna ay dhogorta ahaan jireen 100 kuna 30 kuna lacagta ahaan jireen 100 kuna dhogorta ahaa kii aynu ku ballanay idina waa sheegtaan anana waa qaadanaynaa kii aynu ku ballanay ee deegaankan lagu kala qaadan jiray nabaddu waynu ognahay dhammaanteen waynu wadan oo wixii Ilaahay abuurtay makhluuqa Ilaahay abuurtay oo nabadda wadana inaguna bini aadan baynu nahado waynu ka sii xaq jirnaa oo nabadda inaga u baahan oo haddii nabad la waado nolol suuragal ma qolada kiiska noo keentay Axmed Garaad yaaniga ma hadda noo naqaynaado kiis bay keeneeno waxa ku maqanina waxay keeneen ka badan waxna waa nagu maqan yihiin iyadana waraaga imika keeneen la yimaadeen baanu mahad ugu naqayna Aadan Axmed oo qore nabad ka doonimayno ninba Aadan Axmed dhulbahantoo dhan baanu ka doonaynaa oo waxaanu ka doonaynaa ilaa Buuhoodle iyo ilaa inta nagu xeereen nagu dhow iyo inta ay qusayso nabadda haddaan laga wada shaqaynin oo aan la wada lahaanin nabadi jiri mayso nabad dhinac kaliya ka xidhmaysa ma jirto marka nabadda waa inaynu ka wada shaqayno reer Buuhoodle inagu hadda deegaan isku mid ah baynu nahay deegaanka isku midka ahayna marunbu wada dhimanaya horumarkii dalka iyo dadkana wuu ka hadhay marka in la sameeyo nabad labada dhinacba waa shay muhiim ah arinta kale ee dhinaca kale reer Buuhoodle ay ka hadleen wadada waxa weeye wadadu way furan tahay annagaana furnay rag baana habeen iyo maalin u soo jeeda ilaalinta iyo sugidda nabadgelyada wadada iyo isdhexmarka dadka waa arintani ugu jirto deegaanka
waa arrin labada dhinacba khusaysa waa arrin ummadnimada iyo islaamnimada qayb weyn ka ah halkan maanta waxaan ku kala qaadanay mag lacag iyo geelba ah 130 halaad waanu ku samiray waa lagu samriyaa beesha nabad bareerka joogta waa ku samirtay ilaahay baa mahad iska leh halkan isugu keenay maanta aynu ugu kala wareejinaynay magta labada reer waxaan marxaati ka nahay ilaa heer gobol maanta heer degmo iyo heer gobolba gobolka Buuhoodle iyo gudoomiyaha degmada Qurlugud iyo taliyayaasha ciidanada intuba ay la joogaan bilayska iyo military-gaba aan ugu kala wareejinay magta labada jilib ee reer Maxamed Cigaal Faarax Hagar iyo reer nabad magta marxuumka Yuusuf Salebaan Geedi ilaahay waxaan uga bareynaa marka horeysa inuu ilaahay u naxariisto xoolaha laga bixiyayna ilaahay uu kugu dhigo kuwii lagu samro ayaa leeyahay Ducaale Bukhari telefishinka Ariel degmada Qurlugud